بسم الله الرحمن الرحيم ودمان أرضي ددوينها الصوماليات وحن كوجو جرنا 10 تحنا عن قادنا مايكروسوفت اكسس إذا 10 داتابيس كينو سودان أيام waxaan sii maraynaa lesson 2 waa lesson 1 waan soo qaadanay marka waxaan sii maraynaa lesson 2 oo waxaan imaanaynaa page keeni IT certification training video office 2007 waana direct number wala soo xiriiri kartaan WhatsApp-na oo soo diri kartaan marka 10 taxna aha waa muhiim jiddan inaan qaadano Microsoft Access annagoo 10 ay yihiin step by step horay waxaan ugu sheegay ardayda dadweynaha Soomaaliyeed annaga hal 10 inaan soo gelino haddana mar kale 10 ma soo gelino ee waxaan soo gelinaa 10 isdaba yaalo taxna oo laga wada faa'iideysan karo sababtoo ah markay la download gareysto la isticmaali karo lagu shaqeysan karo that's it marka waxaan soo gudagalayaa option-kii aan ka shaqeynayni ama field-kii aan ka shaqeynayni halka marka waxaan ku baranay in loo yaqaano field this field way ID-ga waa field oo awal column buu ahaa Excel-ka kan kalena column buu ahaa kuwan row yahay laakiin uu ka bedelayay maxaa la yiraahdaa field macnaha waa goobtan ama aagan aan ka shaqeynayno kala name waa name field year field salary field gender field position that's it marka waxaan haysanaa ilaa 10 qof oo record gareysan waayo wuxuu isticmaalaa Microsoft Access wuxuu isticmaalaa record waa kana record refresh baa lagu leeyahay all record waa refresh gareyn record kani waa kala lesson 1 book qof kuwaad ilaa 10 baan sameeyay waana ku sii dari doonaa idinko arkayo waa muhiim jiddan taas formatting oo ku sameyn doonaan casharkeenan waxaan baran doonaa sida formatting aan u sameeyno iyo sida record-keena aan ku search gareyn karno hadda female kala ayaan ku sii darayaa oo inta waa idin soo qoray hadda saan ku sii daraya arki doontaan sahro kale hadii aan ku daro sahro ma iraahdo 12kii bishii 12kii bishii 15keedii /2016 salary-geedina waa inta waana female aan iraahdo وانا إرادة female باندي كرا وحي وش قيسا يدا هوتيل كم شقيسة Somali Fruit Company Somali Fruit أوكا ساس هاللو قرنا يا مركا كم وقروح سنة هنا أو ما ننا سام وقروح سنة هين كان قروح تيسي إن ذاك وقروح سنة كرنا أيام ما ننا مركا هايلايت بعمل صارنا هنا مركا قروح سنة إنه إيمان إنه في اللي كانوا دن وقروح سنة هنا أصير في اللي بوكلي هاي مركا وحنسو إيمان إنه فونتيجيني قيبتي أو سكشن كان سوق للنهين أنك قرح للنهين بايمانين وأكبر دلينا كنا دان رمين متكلو كفي عم بنشلنا بلوجا أما كلر كلنا وافقصن أما كلر كان أوباهن هاي أيام سوق شنينا وأنا مهم جدا تاسنا برنو وأنا very مهم جدا مركا 10 دار مكان برنو ووافجين دونا شقة دينا ووافجين دونا قوب تانك شقينين وحان دونا يا وافجين دونا وأنا مهم جدا تاسنا ودارجنو marka ardayda jecel 10-dan oo in lagu shaqeeyo oo program kan la yiraahdo Microsoft Access waa baran doontaan si fiican waana program fudud oo asiga si simple way waana ilaa iyo dhowr 10 waana qaadan doonaa marka 10-deeni taxana ayaa inoo soconayo marka weynaysanayno markii falaartis bedesho ayaan weynaynaya waana la socon kartaa okay taas waa fahanay hadda fieldigan name-ka halkan waa soo gelin karnaa oo hadii aan doorashada u baa muhiim waa dooranaynaa fieldigan waxaan leenahay intimo yeerkii baa yimid yeerkii inta ku bedeleynaa waxaan leenahay waa dooranaynaa fildigan intimo oo name suuqa ku yimaado waxaan leenahay name-kii aan dooranaynaa intimo uu imaanaya yeerkii meesha ku noqonaya okay good waa kala bedelista aan u haysanaa option-ka waxaan eri 10 baan haysanaa ilaa 12 shaqaalaan sameeysanay record-keena 12 baa ku jira okay 12keeni oo shaqaalaha halkan ay nagu jiraan oo record-ka waa kan record-ka kan lagu siinayo record buu leeyahay record-ka qofkii aan rabnaa ka saarayna qofkii aan rabnaa oo nagu jiraya marka record-ka laga saaray hadaa maqashid waa sidaas weeye marka record-keeni baan ku guda jirnaa waana muhiim jiddan tani marka 10-dan marka kan waan aragnay saan quruxsan lahayn record-keeni marka waa kan all refresh baan dhigi karnaa record-keeni waa save gareysanayna spelling baan ku sameyn karnaa total record-keenana waa arkaynaa marka more options hadii aan rabno oo record-keena aan ka sii ogaano waa halkaas inoo jiraan wixii row ah iyo wixii noogu jiro field-yada marka phrases baan aragnay and hiding columns baan aragnay hiding columns oo ku sameyn karnaa marka waxaan aragnay iyo sub data sheet-keeni waan aragnay iyo row high-geeni waa aragnay marka waa kan waxa la yiraahdaa record
recordka waxaa ku shaqeeyo access Microsoft Access database walba wuxuu ku shaqeeyaa record waxa weeye wax walba oo la qorayo la xareynayo waa record marka waxaan baran doonaa filtering sidaan ugu sameyn karno ilaa iyo 10 baa haysanaa 10ka aan haysano 11 ka aan haysano halkaas inuu wada qoran yihiin qofkii aan rabno ayaan A to Z baan isticmaalaynaa A to Z Z to A na waa isticmaali karnaa oo waa soo kala horeysiga A marka Z to A waxa way kala horeysiinta A B C D oo kale A baa usoo horeynaysa B Z to A haddii aan waxaa soo hormaraysa A dii baa hoos marayso kuwii kala kor soo marayo marka waa inaga saarayaa kan waxaan ku ogaan karnaa inaan iska bedelno oo kan soo gashano kan kale waa guduud marka kan markaan soo gashano very good way filtering saan kala sameyn karna waa baranay sort A to Z Z to A oo kusoo noqonaya si aad si fiican ugu fahantaan casharada ma rabno inaan isku dhaxyaacay noqdaan Z to A markaan sameeyo A dii hoos bay maraysaa wixii koraa wixii aan eraygii hoos laga rabay wuxuu isku by order ma noqonayaan by order waxa la yiraahdaa lambarkii 12 kor buu noo soo maray lambarkii koowaadna hoos buu noo maray markaan rabno filtering lagu sheegayo waa inuu soo horeeya kala horeyntii waa inay ilaaliyaan filtering waa inuu kala horeyntii ilaaliyaan marka A to Z baan dooranayaa si sax ah ayuu joogaa A baa ii soo horeysa number 1 baa ii soo horeeya okay menu barkeena waxaan ku arkaynaa home create external data tools iyo data sheets waa kan data sheets kan weyn marka okay data sheets iyo data tools waxaan baranay external data creating home marka maanta waxaan qaadanay cashirkii ahaa sortiga kala horeysiinta sort and filtering baan qaadanay waxaan kaloo aragnay record waxa weeye waxa inoo xareysan inta qof oo inagu jirto baa record ah marka cashirka ku xigo waxaan ku qaadan doonaa anagoo kala saari doona marka recordkeeni find and replace baan ku qaadan doonaa waxaa ku sii xigi doono inaan qaadano relationship database-keena inaan ku sameyno relationship marka haddii aan farta rabno inaan toosino centerka waa keeni karnaa haddii aan rabno midig baan kasoo bilaabi karnaa saasaan ka dhigi karnaa farteeni waa dooranaynaa oo kaliya hadba meesha noo dooran ayaan ka saxeynaa farteeni qaybtaan haddaan rabno dhexdeen aan keeno dhexdaan wada keenayna haddii geeska aan dhigayna waa isla mid sida wordkii oo kale ayaan uga shaqaysiin karnaa waa dooranaynaa dhexdaan dhigaynaa kuwan haye haddii geeska aan rabno geeskaan keenayna kuwan sidoo kale waa dooranaynaa ayagana geeskaan keenayna waa dooranay xisaabtii oo ahayd bishaarka salary mailkii iyo female-kiina waa dooranaya ayagana geeskaan keenaya ila soco marka waxaan ka maamulayaa toolbar-kaygaan ka maamulayaa ila soco marka haddii aan dhexda geynayn dhexdaan geynaya marka tan waa very easy way optionskan inaan ku barano oo aan ku qaadanayno cashirkeennii ahaa Microsoft Access okay marka waxaa inoo soo cashiradeennii lambarka farta sidaan weynaysan lahayn iyadana waa muhiim jiddan taasi inaan barano lambarka farta aan ka dhigan karnaa 14 aka farteena waa naloo weynay sidii aan ku ogeyn kuwii hore kale okay marka cashiradan oo fara badan baa inoo soo socdo oo kala duwan waxaa inoo soo socdo cashirkii relationship waxaa inoo soo socdo finding and replace anagoo kuwan raadin ku sameyn doono oo raadin fara badan xisaabta raadin doono magacyadana raadin doono sababtoo ah mar walba waa muhiim jiddan taas inaan barano waxaan kaloo sameyn doonaa cashir kale query la yiraahdo anoo soo socdo iyo cashir kale form iyo report cashiradaas oo dhan baa inoo soo socdo kala duwan marka ardayda jecel cashiradan waa muhiim jiddan marka waa sii save gareysanayaa wayna ii save gareysan tahay no problem waxaan ku xiran doonaa security-ga iyo cashirka security-ga iyo waxaan isla qaadan doonaa iyo raadinta aan raadinayno magacyada dadka iyo sidaan wax uga bedelan lahayn xisaabaadkaas okay very good waa dhammaan dadweynaha Soomaaliyeed oo jecel casharada database-ka waxay kala soo xiriiri doonaan Somali Star Online Training objective-geeni baa imaanay IT Training Certification Video Office 2007 direct number marka waa casharadii imtixaanaha Somali Star Online Training Engineer Maxamed Barre waxaa kala soo xiriiri doontaan Yahoo iyo Gmail kii aad doontaan sidaa darteed waxaan idin leeyahay dhammaan dadweynaha Soomaaliyeed meel walba joogaan inay ka faa'iideystaan ayaan ugu talagalay sidaa darteed wassalaamu calaykum waraxmatullaah وبركاته.